maanta waxaa farxad ii ah inaan idinkala soo qayb galo aqoonta ku jirta ama wax ku barata mu'assasada Al-Mustaqim Foundation hawl la qabto hawlaha ugu fiican ayay ka mid tahay in tacliinta ubadka lagu barbaariyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan runtii baryahan waxaan ku aragnay inay khayrka wixii ku saabsan horumarinta bulshada inay qayb weyn ka qaataan marka qaybtan waa qaybtii horumarinta dadka mustaqbal ummadeed marka la dhisaayana waxa laga bilaabaa in caruurta la barbaariyo si wanaagsan wax loo baro waxa marka wax lagu farxaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo isxilqaamay inay ururiyaan ilmahan yar oo waxbarashadii u diyaariyaan berigi hore waxa dhici jirtay Soomaalida banaanka ay wax ka sugi jireenoo ummado kale ayay ka sugi jireen inay aqoontooda u xanaaneeyaan dadkaas aqoonta xanaaneyn jiray ee banaanka wax ka soo dhiibi jirayna waxa ay saa u yeelayaan waxay ahayd janno ayay ku raadinayeen ayaga oo ka faa'iideysanaya fursadda xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam ana wa kafir yatiim kaatayni fil janna aniga qofkii aqoonka faal qaada labada farood ayaan sida jannada kale ku ahaanaynaa oo laba farood oo isu dhow ah mid lagu tasbiixsaday mid ku xigta bariga hore marka hadii loo diyaarin jiray dad kale inay jannada galaan oo inagana asbaabtii ay ku gali lahaayeen aan u diyaarin jirnay hadda waxaa bilaabatay in ay Soomaalidu iyo ahlu khayrka kale ay dariska leeyihiin ama ay la nool yihiin inay garab isku siiyaan oo ay kafaalaqaadkii aqoonta ay sameeyaan $30 oo ubad wax lagu baro in badan oo Soomaalida kamid ah way bixin karaan markay bixiyaanna wax hadda ka nusqaamaya oo ama yani xiriir ay dareemayaan ma aha wayna ka baxday meel fiican way uga baxday ayaga ayaana sadaqaystay oo meel dhigtay inay marka ka wada qayb qaataan ayaan ugu baaqaynaa dhalinyarada yaryarka ah ee waxbarashada ku jirtana waxaan ku dhiirigelinaynaa inta ay yar yihiin inay wax bartaan fursadda ay maanta haystaan ay ka faa'iideystaan waxbarashadu aad iyo aad ay u qiimo badan tahay qofka waxay ka dhigtaa insaaniyadiisa ama bini'aadamnimadiisa ayay bartaa ugu horeyn wuxuu noqonayaa qofka qof asaga is yaqaana waxay waxbarashada ayaa waxay ka bilaabanaysaaba isku kalsooni qofku inuu barto oo inuu wax barto ay tahay hadhowna wax ayuu qabsanayaa in marka loo diyaariyo inuu wax qabsado dadka ka shaqeynaya ajir badan ay ku leeyihiin in laga faa'iideysto oo fursadan taagan lagana qayb qaato aad ay muhiim u tahay munaasabadan ku saabsan ka qaybgalka tabarucaadka mu'assasada loo sameeyay aqoonta lagu kafaala qaadayana oo ay Soomaali iska leedahay oo magaalada Muqdisho ay joogaan oo wax ku baranayaan aad ay muhiim u tahay dadkii soo abaabulay oo muddadaas dheer soo waday Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan baryaynaa inuu khayr ka siiyo thawaab badan u qoro inta ay tusiyeen ayagana fursad u abuureen oo ka qayb qaateen ayagana Allah ka aqbalo ubadkeena aan barbaarinayna ayagana Ilaahay fahmo iyo fiiro iyo cilmi naafica Allah u fuudeeyo mustaqbalkaasi Al-Mustaqim ay dhisayso in lala wada dhiso ayaa qof walba kor ka saaran Ilaahay inoo kaalmay dhamaanteen inaan hawshaas ka wada qayb qaadano waan baraarujinayaa in hawshaas laga qayb qaato mu'assasada guriga ay ku jirto oo guri ijaar ah waqti kastana dhici karta in loo baahdo qof ilaha uu iga baxay yiraahdo sida ugu fiican waxay tahay in loo helo dhul aqoontaasi loo dhiso oo ay wax ku bartaan oo mu'assasadu ay saa u maamusho waana mustaqbalka waxyaabaha ummadaha tacliinta ka shaqeeya ay yani xooga saarana waxa kamid ah in ay helaan madaaris iyo meelo ay ku barbaariyaan ubadka waxna ay ku baraan oo ayagu ay iska leeyihiin marka insha Allah taala arintaas ayadana baaqaasna laga faa'iideysto dadka gacanta ku hayana garab hal ugu sii arintaas ayada waa mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Al-Mustaqim Foundation waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan caruurta aqoonta ah oo ay dabaraan waxbarashadooda buugaagtooda qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood 180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo aqoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisa damaanad qaaday waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo waliba aqoonta waa laga dardaarmay shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa